u yeeraan wasiirka amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed si ay wax uga weydiiyaan xaaladda amniga ee guud ahaan wadanka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed iyadoo la fulinayo dalabkii xubnaha baarlamaanka ee ku aadanaa in wasiirada xukuumadda qaybtooda ay hor yimaadaan baarlamaanka ayaa maanta xarunta golaha shacabka oo ay ku shiraan mudanayaasha baarlamaanka waxaa tagay wasiirka amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed kaasi oo xildhibaanadu ay weydiiyeen su'aalo ku qotoma arrimaha ammaanka ee dalka iyo sida wasaaraddiisu ay u maareysay kahor inta aysan si rasmi ah u bilaaban hawsha su'aalo weydiinta ayaa wasiir Cabdikariin waxa uu codsaday in kulanka dibadda looga saaro bahda warbaahinta taasi oo dhalisay buuq iyo kala qaybsanaan baarlamaanka dhexdiisa hase yeeshee ugu dambeyntii guddoonka baarlamaanku uu codgeliyay arrinkaasi iyadoo xildhibaanada aqlabiyadooduna ay isku raacday in warbaahintu ay goobjoog ka ahaadaan kulanka waxaa ogolaaday in marata ay ka baxaan 41 waxaa ogolaaday in ay saxaafadda inay joogto 100 waxaa ka aamusay 8 marka way joogayaan saxaafaddu way joogaysaa su'aalaha xubnaha baarlamaanku ay wasiirka weydiiyeen waxaa ka mid ahaa natiijadii ka soo baxday baaritaankii weerarkii bishii labaad ee sanadkan laga fuliyay xarunta madaxtooyada waxaa ka jira wararka sheegaya in hay-adaha shisheeye ay xabsiyo qarsoon ku leeyihiin gudaha dalka dalalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhowaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo loo geystay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo dad rayid ah daryeelka ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa kale kuwaasi oo dhammaantood ku qotoma sida wax looga qaban karo xaaladda ammaanka ee wadanka Soomaaliya ma aanu maqal dhacdada cid u fududeysashaa in madaxtooyada soo gasho iyo baaritaankii laga galay oo wax ku saabsan oo laga hayo information ma hayno waxaana laga soo gudbay muddo 3 bilood ah su'aasha waxaan codsanayaa midna wasiir inuu nooga jawaabto dhacdadaas cid u fududeysashaa in madaxtooyada soo gasho dhacdadaasi waxaa loo saaray guddi golo wasiiro ah oo 5 xubnood ka kooban baaritaanka qaybtiisii hore waa la soo gabagabeeyey ribood dhammaystiran oo fuul ahna waa laga diyaariyey waxaanan u gudbinay dhammaan hay-adihii ku shuqulka lahaa oo idin waa u gudbinay wasiir maadaama aad ku fashilantay mas-uuliyaddii lagu idmaday ee amniga dalkuna faraha ka baxay diyaar ma u tahay adiga iyo cidda kale amniga kula qaabilsanba inaa xilka iska casishaan cadaaladana laydin horgeeyo oo wax laydinka weydiiyo dhacdadii weerarkii xarunta madaxtooyada ee qaranka dilalkii loo geystay xildhibaanadii qaranka ee kala dambeeyey odayaashii dhaqanka saraakiil shacab dhakhaatiir iyo xubno qaybaha bulshada ah anigu waxay ila tahay wixii la xisaabtankayga ah inaan shaqadayda guto iyo inaan gudan iyo saan u guto hay-ad aan hoos imaado oo qaabilsan ayaa jirta hay-addaasaa marka xaq iigu leh la xisaabtan hay-addaasaa xaq iigu leh oo aan hoos imaadaa aan dhammeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed mas-uuliyad guud ayuu xaq iigu leeyahay iyo waajib iigu leeyahay iyo in uu sidaan oo kale ila xisaabtamo su'aalana igu weydiiyo ayuu xaq iigu leeyahay anigoo marka ra'yiga xildhibaanada ixtiraamaya qadarinaya sharfaya weyneynaya su-aashaas ayada aniga jawaabtayda sidaasaan ka dhigaya mahadsantihiin waxaan dareemaynaa inuu jiro taarget ka badan kuwii hore u jiray oo dowladnimada alle oo macna jiray laakiin hadda wada xildhibaanada beegsi toos u jiro arrimahaas wasaarad ahaan waxaan wadana maxaa kalifay oo keenay hadday taarget noqdaan waa kow tan kale waxa weeye wasaaradda amnigu waxay muhiimadda siisaa ilaalinta xukuumadda inta kale wasiirada ku-xigeenada kan yaa qaabilsan amniga xildhibaanada waa mahadsanteed 470 askari oo booliska Soomaaliyeed ka mid ah oo min isugu diraysa ku jirin ayaa booliska Soomaaliyeed uga maqan erig oo macnaheedu ay tahay 470 askari oo booliska Soomaaliyeed waxay ilaaliyaan oo waardiyeeyaan ama xildhibaanada ama wasiirada iyo mas'uuliyiinta qaranka ayay ilaaliyaan oo waardiyeeyaan waa dareemi kartaa markaas runtii intii uu xad la egyahay waxaan u aragnaa inay intaa in ka badan ay mutaystaan xaqna u leeyihiin haddaan awood intaa ka badan leenahana runtii waa siin lahayn waana nagu leeyihiin laakiin gacmo wadajirba wax ku gooyaan waxaan rabnaa xildhibaanada ayaga laftirkoodu in qayb ka mid ah mas-uuliyadda amnigooda
ay nala qaataan ayaan aad iyo aad u rajeynaa. maalmaha soo aadanaya sidoo kale xubnaha baarlamanka waxaa hortagi doona wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdulaahi Goodax Barre sidoo uu qorayay muushinkii xubno ka tirsan baarlamanku ay soo gudbiyeen. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Muqdisho.